waxa howlka shirarka ee kaaliya xarunta madaxtooyada dowladdeegaanka Soomaalida ka qaabsoomay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagula wareegayay ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ONLF kuwaasi oo si buuxda uga mid noqonaya ciidamada deegaanka Soomaalida. haddaba arrintani ayaa noqonaysa maanta mid baal cusub oo taariikhiya u furta shacabweynaha deegaanka Soomaalida, taasi oo meesha ka saaraysa 30 sano oo dagaal dhiig fara badan ku daateen oo ka socday gudaha deegaanka Soomaalida, waxayna xafladani gunaanad u noqonaysaa colaadahaas dhiilada lahaa ee galaaftay kumanaan shacab ah oo aan waxba galabsan iyo tiraynta leeg oo ka tirsanaa labada dhinac ee dagaalamayay, iyadoo sanadihii u dambeeyay loo adeegsaday colaadan in la isugu hubeeyo oo la iska horkeeno oo dad walaalo ah oo wada dhashay si ay colaadani u ahaato oo mid mar walba ka dhaxalowsan shacabka dhexdiisa kana dhigtay deegaanka mid ay adag tahay in lagu noolaado. hase ahaatee isbeddelkii ka dhacay deegaanka iyo dalkaba ayaa ka dhigay mid suuragal ah in jabhadda ONLF iyo dowladda Itoobiya ay heshiis rasmiya ku kala saxiixdaan bishii 12 ee sanadkan 2011 tirsi taariikheedka dalka Itoobiya magaalada Asmara ee wadanka Eritrea, iyadoo intii heshiiskaasi ka dambeysayna labada dhinacba ay si wada jir ah har iyo habeenba uga wada shaqaynayeen kamira dhalinta heshiiskan, isla markaasina xafladani ayaa guul taariikhiya u noqonaysa shacabweynaha deegaanka Soomaalida. haddaba madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ugu horeyn ka hadlay xafladani ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb gala xafladani taariikhiga ah. marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan ee inta loo qof oo muwaadiniin oo walaalo ah oo ayuhu kala geeyay maanta isu keentay. waa mahad Ilaahay, aad baan ugu faraxsanahay oo mahadsantiin. sidaad la socotaan deegaankeenna waxaa ragaadiyey colaado fara badan oo soo maray oo badankoodu aasaaskooda ahayd xaq raadis iyo xuquuq raadis iyo xornimo raadis, taas oo shacabkan dhibaatooyinkii faraha badnaa ay soo jireen inay kaga baxaan ay ku rabeen, iyadoo taas ay ka dhasheen colaado fara badan, barakac, dil, xansuuq iyo dhibaatooyin aan la soo koobi karin. waxaa Ilaahay mahadiya in maanta aan marayno marxalad taariikhiya oo haddii aan ka faa'iidaysano aan kaga gudbi karno dhibaatooyinka ayna soo maray waa cusub oo walaalnimo oo horumar oo nabadeed iyo wax la qaybsi qoomiyadaha kale iyo raadis xuquuqaha inaga maqan ay noo furayso. in maanta Ilaahay uu sabab inooga dhigo inteena meesha fadhida waa arrin aad iyo aad muhiim u ah, waana marxalad taariikhi oo runtii u baahan in la xuso oo ahmiyaddeeda iyo miisaanka ay leedahay kulligeen aan dareensanaano. geestiisana gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo ka hadlay xafladani ayaa sheegay in munaasabadani ay tahay mid aan hadda ka hor soo marin, isla markaasina ay caddayn u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed. isbeddelkii dhacay waxaa isla markiiba uu keenay in ay dowladda cusub ku dhawaaqday in aynan ururada gobonnimo doonka oo ururkayagii uu ka mid ahaa inaynan ahayn ururo argagixisa, inay ururadaas yihiin ururo xaq u dirir ah oo gobonnimo doona. waxay ahayd tallaabadaasi albaab awal hore xidhnaa ayay ereygaas ama khudbadaasi yay furtay. markay dowladdu arrintaa ku dhawaaqday isla markiiba waxay raacisay inay maxaabiistii faraha badnayd ee shacbiga Soomaaliya ogaadeen ka tirsanaa in la sii daayo oo markiiba la sii daayo. labadaas tallaabo waxay u horseedeen in gobonnimo ama in wada hadalkii iyo gobonnimada tallaabooyinkii loo socotay ay meel maraan. labadaa tallaabo ama saddexdaa tallaabo markay dowladdii qaaday, annagana golihii dhexe wuu fadhiistay. golihii dhexe markuu fadhiistayna wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin yuu ku dhawaaqay, isaga oo runtii ka jawaabahaya tallaabooyinkii dowladdu ay qaaday yaanu annaguna ku dhawaaqnay mataqaanaa xabad joojin. isla markaana waxaanu go'aansannay inaan dalkayagii soo gallo.
waxaa taariikhda abid markii ugu horeysay hoolka shirarka ee kaali ee xarunta madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida ka dhacday xaflad markaasi lagu wareejinaya ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ONLF oo markaasi lagu darayo ciidanka deegaanka Soomaalida arintani ayaa ku timid kadib dadaal fara badan oo markaasi ay sameeyeen hogaaminta ugu sareysa ee xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sareysa ururka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ONLF kuwaasi oo markaasi dhammaantoodba ka wada shaqeeyay sidii guud ahaanba deegaanka Soomaalida looga dhalin lahaa nabadgelyo waarta isla markaasina loo afjari lahaa dhibaatooyinkii farabadnaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay ama sanooyinkii ugu dambeeyay ka jiray deegaanka Soomaalida Cabdirasaaq Daaja SRTV hoolka shirarka ee kaali ee xarunta madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaan xoog saarayaa waxyaabihii qabsoomay intii isbedelku yimid dhinaca siyaasadda waxaa lagu guuleystay iyadoo laga tixraacayo qiimeyntii uu sameeyay xisbigu in isbedel siyaasadeed ka dhaco deegaanka kaasoo suurageliyay in dhismihii dowladda ee burburay hay'adihii dowladda dib loo soo dhiso ama structure-kii dowladda loo soo dhiso qaabkii loo dhisay sida uu hadda yahay tayadiisa su'aalaha ka jiri kara laakiin in muddo kooban iyadoo nidaamkii dawliga ahaa oo dhan burburay oo dib u curashadii markay burburtay la isdhex yaacay dhammaan degmooyinkii wax nidaam mawaaqir oo dawladdu ay laga soo dhiso waxqabadkii ugu weynaa xukuumadda 5 bilood u dambeysay ayay ahayd kaasoo weliba la tixraacayay criteria cad oo ahayd in dadka aqoonyahanka ah ee dhalinyarada la soo xuro oo maaragtay nidaamka la soo geliyo aad looga dadaalo in dadkii dhibaatooyinka shacabka u geystay ayna nidaamka soo gelin inkastoo godollooyin ay ka jiri karaan qaabkii loo maray iyo tashiyadii loo baahnaa in la sameeyo oo qaarkii halkan aan isku garwaaqsanay intaan ka wada hadalay xildhibaanada dhinaca kale shirar balaaran oo la tashiya ayaa shacabka la sameeyay iyadoo taasi nidaam hadda ka hor loo bartay aan ahayn in dadku ay wax ku yeeshaan waxa la dhisayo oo si participatory ah maamuladii loo dhiso dhinac godollada ka yeelan kartaa oo waxaa la odhan karaa arrimihii qabiilka iyo waxbaa inagu soo noqday baa la odhan jiray laakiin haddana maadaama mujtamaca Soomaalidu mid ku salaysan uu yahay qabiilkaas mar haddii kala guur lagu jiro in la qanciyo dadkii tabashooyinka qabay muhiim bay ahayd taasoo keentay in la tashi ballaaran lala sameeyo oo aan aaminsanahay inuu qayb ahaan saamaxay deganaanshaha maanta ka jira deegaanka waxyaalaha kale ee qabsoomay dhinaca siyaasadda waxaa ka mid ahaa xuquuqul insaanka iyo xorriyadda qowlka oo runtii furaha nolosha bini'aadamka ah oo laga yaabo in dadka qaarkii aynan aad ugu baraarugsanayn faa'iidada ay u leedahay mujtamacu marka uu si xor u fikiro ama si maaragtay xuquuqdiisa la ilaaliyo waxaa u furmaa furaha maaragtay nolosha dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dhinac walba marka dhinacaasna waxay arrimo soo kordhay ay ahaayeen dhanka nabadgelyada dib u habeyntii ciidanka liyu booliska oo ahaa ciidan runtii tacdiyo fara badan shacabku ay ka sheeganayeen una baahnaa in si miisaaman loo dheelitiro dadkuna ay dareemaan ciidan ay wada leeyihiin inuu yahay iyadoo maalmihii aan meesha nimid ay dhici jirtay in goobaha qaarkood laga diido la yidhaha kama soo geli karaan oo fikirro khaldan oo dadka cadaadiskii iyo gacanbixintii saaray ay ka keentay ay jireen in ciidanka dib loo habeeyo oo ciidan maaragtay shacabku ku kalsoon yahay laga dhigo shaqo ballaaran baa laga qabtay misaanad badan lagu bixiyey taasoo keentay in hadda dhinaca akhlaaqda iyo anshaxa iyo ilaalinta sharciga iyo dastuurka si aad u ballaaran isbedel dadku ay uga dareemayaan meelaha qaarkood caqabado ay arrintaas keentaa way jiraan sida isku qabsiga dhulka oo kale iyo ixtiraam darrada ciidanka oo iyaduna dhinaca kale u shaqayso oo khalad kale ka keeni karta laakiin guud ahaan in dadku nastaan oo ciidankana ciidankooda yihiin ay dareemaan waa waxqabadkii ummadda oran karnaa waxa kaloo waxqabadkii ballaaran ee xukuumadda ka mid ahaa heshiiskii laga galay ururka ONLF kaas oo soo afjaray colaadii dabada dheereyd ee deegaankeena ragaadisay ee tacadiyada badankoodu u noqotay asaaska soo afjartay iyadoo dadaal dheeraad oo muddo bil ku dhawaada adsabay asmara ay xukuumaddu u dhaxaysay si la isugu soo dhaweeyay afkaartii kala duwaneed una suurto gasho in deegaanka si nabada looga wada halgamo colaadii dheereyd ee dhanka ONLF dhanka siyaasadda waan ka soo hadlay
وسياسة هان أورك إنه يمادو يقول هاي تاسنا وحيلا ذا هاي implication حق النبتقلية ذا إلى مركز حق النبتقلية أنا عرادي لحدي دي أنا في أصول دماتي وكانتين ما أنت تذكر بلا ما رأيتي كلاش عن لقلني عبس قلني ينترين جداوي هبين كعانه وضنيان سيد بيان لك حلوه ذاك حيسانيان كنت نفس بالعالم شعب هناك هاي كدريمين وهكذا موقف صومي دجانكو فرفران العرب دينا على الميديا دينا على هيئتها لبضوا كهل كشيء يدو سفارات فربضن هيئة فربضن أي ودن كقصة وقوله يمادين كواس وحقبت كل قارنا الأركي قارنا للسجيو بشي أيوة بعد أنت بدن بليه نوفمبر ديسمبر بهاين ديسمبر وحيل كريسماس وقرن كتان marka waa iska caadi in ay bisha January oo kale ay qaadato in ay daahan qalalaasii siyaasadeed jiray bishii January uu ka qayb qaatay in waxqabadkoodii iyo xabsida ay furan lahaayeen imaadkooda ay dib u dhiganaysiin bal meeshu wax si uu biyo kala dhacaan sugtaan laakiin guud ahaan in xaggaas fikir fiican laga qaato deegaanka noqon mid ammaan ah waxayna ahayd waxqabadkii xukuumadda ayaan oran karnaa